dumarka dhaxalka miyaa lagu dulmay wax badan ayaynu maqalnay xuquuqda dumarka iyadoo oo lagu durayo islaamka iyo inuu u kala eexday ragga iyo dumarka oo alle labka la simay laba dhadig ah balse weli maynaan maqal marka dumarka labalaab saamiga ninka qaadanayaan iyo marka raggu aysan waxba dhaxlayn ee dumarka oo kaliya wax dhaxlayaan marba aabe soo taagan gabadhiisu xoolaha kala bar la dareeraysa isna kala barka soo haray dadka la qaybsanaya waxa jira 30 xaaladood oo ay dhadiga ama dumarku wax dhaxlaan 6 mar waxa ay qaadataa inta uu ninku qaato kala barkeed 7 marna waxa ay qaadataa inta uu ninku qaato in la mid ah 3 balse la yaabka ayaa ah in 9 ay dumarku wax qaataan iyagoo ka badan inta uu qaatay ninku sideedaba islaamku 3 dhinac buu ka joogsaday arinta qaybinta dhaxalka iyo sida loogu kala badan yahay 1 booska qaraabada markastoo aad u dhawaatid meydkana dhaxalkaagu waa siyaadaya iyadoo oo aan loo fiirinayn rag iyo dumarba 2 loodka wax dhaxlaya islaamku waxa uu xaddi dhaxala oo badan siiyaa hadba jiilka dambe ee nolosha bilowga ay u tahay sida haddii uu meydku ka tago gabar uu dhalay iyo hooyadii gabadhu waxa ay qaadanaysaa in ka badan inta ay qaadatay hooyadu iyaga oo ah 2 dumar ah 3 waa culaysyada dhaqaale ee ragga la saaray taas oo keentay in dhaxalka 4 mar kaliya ay raggu labanlaab helaan taas oo ah in ragga lagala xisaabtamayo quudinta reerkiisa meherka guridajinta iyo dhammaanba waxyaabaha kale ee aan dumarka waxba laga weydiinayn muhiimadda hadalkani waa war islaamku waxba kuma qaybin lab iyo dhadig ama rag iyo dumar ee waxa uu ku qaybiyay waa 3 qodob oo ah kuwa 100% aan meel ka dhac ku faleyn dumarka qof walba oo muuqaalkan uu soo gaaro waxaan ka codsanaynaa inuu muuqaalka like gareeyo sidoo kalena share ama copy link u dhaho YouTube-keena walaalka showna hala booqdo mahadsanidin